wararka laga helayo deegaanka Beledulamin oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo waramaya in maanta halka uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidanka dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidamo ka tirsan xarakada alshaab. dagaalka ayaa lagu waramayaa inuu yimid kadib markii ciidanka dowladda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen fariisimo alshaab ay ku lahaayeen deegaankaas. dadka deegaanka ayaa ku waramaya inuu jiro khasaare kala duwan oo soo gaaray dhinacyada dagaalamaya walow aan la xaqiijin karin inta uu rasmi ahaan u leeg yahay. deegaanka Beledulamin ee dagaalku ka dhacay maanta ayaa lagu soo waramayaa in uu ka socdo barakac ay sameynayaan dadka deegaanka maadaama wali ay soo fadhiyaan dhinacyadii dagaalamay. xukuumadda Soomaaliya oo war kooban ka soo saartay dagaalkan ayaa guulo ka sheegatay dagaalka maanta halka ka dhacay. wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cusmaan Cumar Yariisow oo barta uu ku leeyahay baraha bulshada ku soo qoray war kooban ayaa ku sheegay in ciidanka dowladda Soomaaliya ay deegaanka Beledulamin iyo deegaano kale oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Walaweyn ay kala wareegeen dagaalyahanno ka tirsan xarakada alshaab kadib markii ciidanka dowladda ay halka ka sameeyeen sida uu sheegay howlgal qorsheysnaa. dhinaca alshaab wali kama aysan hadlin dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Beledulamin ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka dowladda Soomaaliya iyo alshaab ayaa muddooyinkii dambe ku dagaalamayay deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. maxamed cabdi xasan idla saab TV magaalada Muqdisho.